بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ma ogtahay aadamu awoodaha alla ina siiyay ma ogtahay noloshuba waa ilbiriqsiyo qofkii ka faa'iideysta qofka ka faa'iideysan ilbiriqsiyada way soconayaan ma ogtahay aadamu waqtiga inuu yahay hantida aad adigu leedahay ugu muhiimsan waxaa jiray baaritaano badan la sameeyey oo waxaa lagu sameeyey dad fara badan oo boqolaal gaaraya sii dhimanaya oo ay nolosha ka sii baxayso ay marayaan xilliga la yiraahdo terminal stage of death la yiraahdo ama xilliga ugu dambeeyay nolosha ka sii baxayso ay marayaan ayaa waxa la weydiiyey waa maxay waxyaalaha noloshiina aad ka qoomameynaysan oo aad ka shaleeynaysan maadaama in badan soo noolaadeen maantana aad dhimanaysaan waa maxay waxa aad ka qoomameynaysan waa maxay waxa aad ka shaleeynaysan maanta jawaabuhoodu waxay ahaayeen si isku dhow waxay lahaayeen kamaynan qoomameynin kamaynan shaleynin qaladaad fara badan ee nolosha intay noolaayeen sameeyeen ee waxay ka qoomameynayaan waxay ka shaleynayaan waxyaalo fara badan ay doonayeen inay sameeyaan oo aynan sameynin hammi fara badan ay lahaayeen aynan sameynin qorshayaal fara badan ee nolosha ka lahaayeen aynan sameynin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يا رب إلهي وحنا ليهي مركي تماض نرش لمشار مركي تماضو وعليين يا رب إن علم مرلبا إن علم إليين سيان ومحي زمانيان سيان أصو سمينو وحو ناقسن سيان أصو سمينو هذا كما قوم مينيان هل كان قلدات فربضن إله يا رب مؤرنيان يا رب وحمانا صو سمينيني ما سمين لهن يحليين يا رب مر لبد إن علي سي أن أصو سمينه وحيلا فربضن أو ناقسن waxaa jirtay sheeko la yiraahdo waa xilli sheeko la yiraahdo sheeko magaceedu yahay waa imika xilliga saxda ah bayba waxaa jirtay nin maqaaxi fadhiya ayaa waxa soo gashay gabar uu ka helay dabata gabadhii ayuu ku qanacay uu ka helay laakiin wuxuu yiri gabadhan imika inta u tagto lama hadli kartid waayo xilligii saxda ah maahan dabata wuxuu qabsaday sanad ayuu qabsaday wuxuu yiri sanadkan baad ku soo dadaalaysaa waad ku soo diyaar garoobaysaa dabata warqad ayuu qoray warqad ayuu wuxuu ku leeyahay sanad kadib waan ku imanayaa waxaad noqonaysaa xaaskii oo ku gursanayaa dabatana warqadii wuxuu u dhiibay ninkii magaranaysa postamaanka ama boostada ka shaqeynaya ayuu dhiibay bare baarara ayuu dhiibay 6 bilood markay dhamaatay ayuu mar laba warqadii buu qoray wuxuu leeyahay waxa ii dhiman 6 bilood baa ii dhiman 6 bilood kadib waan ku imanayaa waxaad noqonaysaa xaaskii oo ku gursanayaa 9 bilood markii maraysay ayuu warqad saddexaad buu qoray wuxuu leeyahay 3 bilood oo qoray ay hadhay waan ku imanayaa waan ku gursanayaa waxaad noqonaysaa xaaskii waad noqonaysaa warqadii ayuu wuxuu dhiibay ninkii dambe postmanka boosta ka shaqeynaya ayuu dhiibay dabeetana markuu dhammaaday 12 bil uu qabsaday ugu talagalay inuu ku soo diyaar garoobo ayuu yimid gabadhii u yimid wuxuu yiri waa imika xilligii uu dhammaaday waa waxaan doonayaa imika inaad xaaskii noqoto aan ku guursado gabadhii waxay tiri waan ka xumahay mar hore ayaa la guursaday wuxuu yiri yaa ku guursaday waxay guursaday leedahay ninkii boostaalaha ninkii postamaanka oo warqad u soo dhiibi jirtay ninkii ay guursaday sheekada xigmadda macnaheedu wuxuu yahay waa imika xilliga saxda ah waa imika xilliga saxda ah haddaad leedahay qorshe fog haddaad leedahay hami fog haddaad doonayso inaad samayso dhaqaaliye maal haddaad doonayso waalidka inaad raali geliso haddaad doonayso aakhirina u shaqaysato haddaad doonayso inaad naftaada hormariso haddaad doonayso inaad isbeddel samayso haddaad doonayso inaad wax noqoto haddaad doonayso inaad wax noqoto waa imika xilliga saxda wax walba aad doonayso waa imika xilliga saxda. Assalaamu calaykum.